10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. صفتين وتا كوب لغو هردمي وتا كوب لغو هردمي وتا كوب لغو ترتمي وتا كوب صفتين وتا كوب لغو هردمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعن أو ونكسن داود يا ملك سجوكتان كسر دوادا channel كينا الصومالي ديزاين ميديا يوليبا حوينتيني سبورتيغا قد بدأنا وين حوينتي سبورتيغا ee soo qaadan doona waxaa kamid ah goolhayaha Ajax Andre Onana oo fariin u diray kooxda Manchester United kadib markii ay Ajax Redevil ka soo diiday dalab ay ku doonaysay adeegiisa. James Rodriguez oo iska diiday inuu ku biiro kooxda Napoli ee ka dhisan wadanka Talyaaniga iyo waliba kooxo kale oo ka tirsan horyaalka Premier League. Tottenham oo Real Madrid u soo bandhigtay saxiixa Christian Eriksen maxay tahay sababta taasina waa in la wadaagi doonaa daawadayaal. Real Madrid oo diyaar u ah inay Liverpool u soo bandhigto saxiixa Marco Anezia si ay u helaan adeegga Sadio Mane. qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku soo qaadan doonaa xubinteena isboortiga daawadayaal. fadlan haddii aad ku cusub tahay janaalkeena Somali Design Media subscribe saar kadibna taabo gambarka si ay ku soo gaaraan muuqaaladeena ugu dambeeyay. soo noqod wanaag goolhayaha kooxda Ajax Andre Onana oo fariin u diray kooxda Manchester United kadib markii kooxda Ajax dalab rasmi ah ay ka diiday kooxda ligeeda ee horyaalka Ingiriiska ee adeega goolhayaha si ay uga bedesho goolhayaha baxsadka ah ee David De Gea. Andre Onana ayaa sheegay inuu doonayo inuu sii joogo kooxda Ajax kadib markii ay kooxda Ajax dalab ay ka diiday kooxda Manchester United ayaa ku dhibtoonaysa inay heshiis ka saxiixato ciyaaryahankeeda goolka u ilaaliya ee David De Gea kaasi oo heshiiskiisa uu dhici doono xagaaga dambe waxaana Onana ay u arkay doonaan bedelka munaasabka ah haddii De Gea uu isaga tagay garoonka Old Trafford. Onana ayaa soo jiitay indhaha kooxda Manchester United kadib qaab ciyaareed cajiib ah uu ku soo bandhigay iyadoo dalab rasmi ah u gudbiyay adeegiisa laakiin waxay kala kulmeen waji gabax. 23 jirkan ayaa ka mid noqday goolayaasha ugu fiican Yurub kadib qaab ciyaareed cajiib ah uu ku soo bandhigay waxayna Ajax ay ku qiimeynaysaa goolhayaha reer Cameroon adduun dhan 40 milyan oo euro. laakiin Onana ayaa doonaya inuu sii joogo kooxda Ajax inkastoo uu xiiso ka helayo kooxda Manchester United. waxaa muhiim ah aniga in aan u ciyaaro heerka ugu fiican waliba aan ku sii wado horumarka ayuu yiri Onana oo sheegay Football International. wali waxa aan ahay wiil aad u daayar Ajax ayaana iga caawisay in aan horumar sameeyo waxaana doonayaa inaan sii joogo oo aan guulo la gaaro ayuu yiri goolhayaha reer Cameroon. xidiga xulka qaranka Colombia iyo Real Madrid James Rodriguez ayay xaqiiqo u tahay inuu isaga tagi doono kooxda Real Madrid inta loo guda jiro suuqa kala iibsiga ee xagaagan xilli si weyn loola xiriirinayo kooxda Napoli. laakiin James ayaa doonaya inuu ku biiro kooxda Manchester United isaga oo diidan inuu ku biiro kooxda Napoli kadib 2 sano oo amaah ku soo qaatay kooxda ka dhisan Bundesliga ee Bayern Munich ayaa Real Madrid si toos ah u iibinayso xidiga khadka dhexe iyaga oo haatan dalab amaah ka helaya kooxda Napoli. si kastaba ha ahaatee wargeysa Octiara ayaa sheegaya in xidiga reer Colombia uu ka meermeerayo inuu ku biiro kooxda Napoli isagoo doonaya inuu ku biiro kooxda Manchester United. haatan James Rodriguez ayaa sugaya dalab uga yimaado kooxda Manchester United waxaana uu si cad ugu sheegay maamulka kooxdiisa in aanu doonayn inuu ku biiro kooxda Napoli. wargeyska ayaa sheegaya
in fikirka ku biirista horyaalka Premier League iyo ciyaarista kooxda Manchester United ay xiise gelinayso kabtanka xulka qaranka Colombia. Xidiga ayaa haatan bilaabi doona fasaxa xagaaga kadib markii ay wareegga sideed dhamaad ay kaga hareen tartanka Copa America ee ka socda dalka Brazil. Gudoomiyaha Tottenham Dani Levy ayaa la xiriiray Real Madrid isaga oo u soo bandhigay saxiixa xidiga reer Denmark inta lagu guda jiro suuqa xagaagan. 27 jirkan ayaa diiday inuu heshiis cusub u saxiixo kooxda Tottenham xilli heshiiskiisa haatan uu dhici doono xagaagan 2020. Taasi ayaana sabab u ah in Levy uu la xiriiray Real Madrid si uu ugu soo bandhigo xidigan ka hor inta uusan si xor ah uga tagin xagaaga dambe. xilli ay Tottenham 150 milyan oo euro ay ku doonaysay xidigan xagaagii la hore, waxaana haatan ay diyaar u yihiin in ay iibiyaan lacag dhan 70 milyan oo euro. Real Madrid ayaa haatan diyaarinayso in ay aqbasho soo bandhigistiisa xidiga, laakiin waa haddii marka hore ay ku fashilmaan helitaanka saxiixa xidiga khadka dhexe ee kooxda Manchester United Paul Pogba iyo weliba Dani van Beek. dhanka kale daawadayaal, Real Madrid ayaa diyaar u ah inay Liverpool usoo bandhigto saxiixa Marco Asensio si ay u helaan adeega Sadio Mane. kooxda Real Madrid ayaa isu diyaarinayso dalab ay ku doonayso saxiix xidiga garabka weerarka uga ciyaara kooxda Liverpool Sadio Mane, iyadoo dhankeedana usoo bandhigi doonto Marco Asensio sida ay sheegayaan wararku. Jurgen Klopp ayaana taageero weyn u ah Asensio, waxaana dhowr jeer uu isku dayay in uu la soo saxiixdo intii uu tababaraha ka ahaa kooxda Liverpool. Real Madrid ayaa dhankeeda xiise u qabto xidiga Sadio Mane tan iyo xagaagii hore kadib qaab ciyaareed cajiib uu kusoo bandhigay tan iyo markii uu kusoo biiray kooxda Liverpool. Real Madrid ayaana diyaar u ah inay Asensio ay u ogolaato inuu ku biiro kooxda Liverpool si ay Redisna u qancaan inay ka iibiyaan xidiga reer Senegal ee Sadio Mane. tababaraha kooxda Real Madrid Zinedine Zidane ayaa taageero weyn u ah xidiga reer Senegal, waxaana uu doonayaa inuu qayb ka noqdo isku shaadhaynta xagaagan. Asensio ayaana ka fiirsanaya inuu isaga tago kooxda Real Madrid xagaagan si uu u raadsado koox uu si joogto ah ugu ciyaaro xilli ciyaareedka dambe. haddaba waxaa la sugo ayaa ah jawaabta ay Liverpool ka bixin doonto qorshaha ay Real Madrid iyo isku bedelashada labadan xidig. kooxda Crystal Palace ayaa go'aan ka gaartay mustaqbalka xidiga garabka uga ciyaaro ee Wilfried Zaha kadib markii uu codsaday inuu ogolaadaan inuu ku biiro kooxda Arsenal inta loogu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan. Crystal Palace ayaana la sheegay in ay diidi doonto in Wilfried Zaha ay u ogolaato inuu ku biiro kooxda Arsenal xagaagan sabab la xiriiro in bixitaankiisa uu khatar gelin karo iibka ay milkiilayaasha kooxda iska iibinayaan. xidiga reer Ivory Coast ayaa maamulka Crystal Palace ka codsaday inay u ogolaadaan inuu ku biiro xagaagan kooxda Arsenal, kuwaas oo isku diyaarinayo qorshe ay uga dhaqaaqayaan xidiga. Palace ayaa Zaha u ogolaan lahayd inuu ku biiro kooxda Arsenal, laakiin haatan kuma jiraan wax cadaadis ah dhanka dhaqaalaha kadib markii ay xidiga Aaron Wan-Bissaka ay ka iibiyeen kooxda Manchester United. milkiilaha kooxda Crystal Palace ayaana raadinaya milkiilayaal iibsada saami kamid ah kooxda si ay dib u dhis ugu sameeyaan mustaqbalka. sidaa darteed waxay ka cabsi qabaan in ay waayaan maalqabeen ka iibsado kooxda haddii ay iska iibiyaan xagaagan xidiga ugu fiican kooxda. daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa xubinteeni sportiga ayaan kusoo qaadanay qodobo aad idin xiisa geliya. fadlan waxaan ku xasuusiyey haddaa mar kale ku cusub tahay janaalkeena Somali Design Media, subscribe saar kadibna taaba gambaleelka si ay kusoo gaaraan muuqaaladeena ugu dambeeya. waad ku mahadsantihiin daawashadeena.